deeq ka kooban daawooyin caafimaad oo kala duwan isugu jirta daawada looga hortagay qalabka lagu baaro xanuunka COVID-19 iyo kale oo caafimaad ayaa maanta hay'adda SASFI waxay ku wareejisay maamulka gobolka Hiiraan iyo maamulka isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. Deeqdaasi kala duwan ayaa looga talagalay isbitaalka magaalada Beledweyne oo baahi daawo ka jirtay waxayna ka timid iskaashiga Talyaaniga. Munaasabad kooban oo deeq wareejin ayaa ka dhacday gudaha isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne waxaana ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cusmaan dhaqaatiir qaybaha kala duwan bulshada iyo madax ka socotay wasaaradda caafimaadka Hirshabelle. Dr. Maxamed Khaliif isku dubaha wasaaradda caafimaadka gobolka Hiiraan iyo Dr. Cabdi Xaliil ayaa ka hadlay goobta. hay'adda SASFI lafteedu waxay ka mid ahayd hay'adii isbitaalka joogi jiray oo muddo 6 sano isbitaalka shaqay ka wada qayb kamida barigaas annaga waxaan lahaynay waa daraafsanayna waxaan lahayn war hay'addan waa maxay isbitaalka bay wada dawasho hadda markay ka baxday culays badan oo isbitaalkii oo ayaa la dareemay maadaama hadda hay'adii ka horeeyeen ay laftooda ay meesha ka tageen gobolkana runtii adeega caafimaadka dhibaato badan ayaa ka jiro oo runtii maaragtay waxaana sabab u ah kolley doonariska ama dadkii wax bixinay oo meesha ka baxay. Shacbaan Jaallo oo ka mid ah madaxda hay'adda SASFI ee gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay inta qayb ay ka kooban tahay daawadaasi. sidoo kale maanta waxaan rabnaa adwiilaarad insha Allah taala daawadan dabcan horteena taalo aan rabnaa adwiilaarad insha Allah taala in lagu wareejiyo isbitaalka Beledweyne dabcan daawadan heerar badan ay soo martay waxa ka sheekeeyay isku duwaha ka sheekeeyay kaliya hay'adda SASFI waxay ahayd inay soo fududeyso oo soo facilitate gareyso keentana Beledweyne ayuu ahay roolka ay ku leeyahay ama waajibaadka ka saarnay daawooyinkan dabcan waxay isku kala jiraan daawooyin antibiotic iyo cholera kit ay isku jiraan iyo agab kaleeto oo dabcan loogu talagalay agab caafimaad oo loogu talagalay in lagu wareejiyo isbitaalka haddii aan wax yar ka cusub agabkaas kaleeto oo qalabka raacsan markii daawada laga reebo waxaa ka mid ah CPR machine oo dabcan lagu ogaanayay cudurkan halakeeyay adduunka oo dhan waxaan ogsoonaan u maleynaa inaysan jirin machine ama agab lagu baaro qofka qaba koronaha. wasiir dowlaha wasaaradda Muxuudiin Mukhtaar Cali iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka Hirshabelle Mr. Tahliil ayaa iyadana dhankooda munaasabada ka hadlay. agabkan waxaa ku deeqay dawladda Talyaaniga safaaradda Talyaaniga oo Soomaaliyeed iyo hay'adda horumarinta Talyaaniga waxa fududeeyay oo keenitaankeeda ka qayb qaatay hay'adda SASFI aan rabna xaggan inaan mahad guud ugu soo jeedino dhammaan cid allaantii cidii ka qayb qaadatay. agabkan runtii wax badan ka tari doona caabuqa adduunka saameynta ku yeeshay coronavirus maadaama ay qayb ay ka yihiin agabkii lagu baarayay cudurka sidoo kale daawadan oo runtii aad indhihiina ku wada aragtaan lana sheegay waxyaabaha ay ka kooban tahay ay ugu muhiimsan yihiin antibiotics iyagana runtii waxay qayb muhiim leh ka qaadan doonaan isbitaalkan ugu weyn ama isbitaal goboleedka magaalada Beledweyne. ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cusmaan ayaa ka mahad celiyay hay'adda SASFI deeqda daawada ee isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ay maanta soo gaarsiisay. salaan kadib hadal badani hadda ma jiro sida ay la tahay waa un mahad celin ciddii dadkan soo kaalmaysay ilaahay baa kaalmo leh oo hadda bini aadamku inta badan waxaad moodaa hadda in aad loogaba ilaahu waxay siiba inaan la dhihine waxaad maqlaysaa hay'adaha laga soo gaaro dawladdu hay naga soo gaadho hay'aduhu hay naga soo gaareen war musiibo hadday ku qabsato inaad ilaahay u Mun Xuseen Cabdi Hirshabelle TV magaalada Beledweyne.